habeen wanaagsan kuna soo dhawaada telefishinka BBC Somali qodobada wararkeena caawa ugu waaweyn waxa kamid ah 20 dal ayaa kulan ka yeeshay sidii ay uga shaqaysiin lahaayeen cunaqabataynta barnaamijka nuclearka Kuuriyada Waqooyi Shiinaha wuxuu ku tilmaamay heshiiskaas mid aan sharci ku fadhiyin sidee ay u saameysay siyaasadda socdaalka Mareykanka dadkii uu codeeyay madaxweyne Donald Trump waxa ay qaar isweydiinayaan waxa ay u doorteen markeedii hore qaxooti ayay ahayd haddana si ay ugu shaqayso nafteeda iyo qoyskeeda ayay badda u gashay Shiinaha ayaa sheegay in kulanka ka dhacay Canada ee lagaga hadlayay nuclearka Kuuriyada Waqooyi aanu lahayn wax sharciyad ah haba yaraatee Shiinaha ayaan shirkaasi lagu soo casuumin wasiirka arrimaha dibadda ee Japan waxa uu ka digay siyaasadda iswanaajinta ah ee Pyongyang ay bilowday Cabdiraxmaan Bidhaan ayaa ka waramaya xubnaha ururkan gaarka ah ee naadiga qarsoon ayaa mar kale kulmaya waa dalalkii ciidamada u diray ee caawiyay qaramada midoobay dagaalkii Korea ee kontomeeyadii iminkana waxay rabaan inay muujiyaan sida ay isu barbar taagan yihiin iyagoo ka jawaabaya khatarta Korea laakiin Shiinuhu kuma jiraan waxa uu ahaa cadowgii kontomeeyadii haddase waa garab adag si loola tacaalo Pyongyang maqnaashihiisa ayaa shaki geliyay natiijada halkan ka soo bixi karta dawladda Mareykanka ayaa iyagu mowqif adag ka qaatay Kuuriyada Waqooyi ujeedada aan wada hadalladan ka leenahay waxa weeye in la helo nidaam sugan oo Kuuriyada Waqooyi nuclearka lagaga joojinayo dhammaan dawladaha halkan jooga way ka siman yihiin hadafkan ma aqbalayno in Kuuriyada Waqooyi ayna kala qaybiso ama ay wiiqdo wada jirkeena kadib markii ay muddo iska indhatirayeen Kuuriyada Koonfureed hadda waqooyigu waxa ay fidiyeen gacan saaxiibtinimo ciyaaraha Olombikada ka hor waxay labada dhinacba isku raaceen in Pyongyang ciyaartoy ay soo dirato inkastoo la fahamsanayn ujeedada Kim Jong Un ajandaha kulanka ayaa ah in la adkeeyo cunaqabataynta gaar ahaan maraakiibta shidaalka tahriibiya koonfurta Kuuriya ayaa soo dhaweysay wada hadallada waqooyiga inkastoo sida kale ay weli mowqifkoodii adkaa u taagan yihiin inkastoo ay niyad muujiyeen fiican si xiriirka koonfurta ay la leeyihiin loo wanaajiyo waa in Kuuriyada Waqooyi ayna tusto inay ka soo baxayso heshiisyada caalamiga ah ee nuclearka quseeyo laakiin waxayba ka hadlayaan inay hub nuclear ah yeeshaan socodka nabadda ee Olombika ayaa socon doona ilaa inta laga gaadhayo bisha dambe laakiin ma xalinayo arrimaha taagan haddii Kim Jong Un dib ugu noqdo barnaamijkiisa nuclearkana xasaradu way taagnaan doontaa marka la eego loolanka siyaasadaha soo galootiga ee Mareykanka way fududahay in la ilaawo saameynta dhabta ah ay gaarsiiso nolosha dadka laakiin taasi waxa ay ka soo cadaatay degmada Pacific ee gobolka Washington dadka badankooda waxa ay u codeeyeen Donald Trump xukuumadda Trump waxay ku adkaysanaysaa in ciidanka socdaalka ee la yiraahdo ICE ay xoojinayaan sharciga iyaga oo fulinaya ballanqaadka doorashada ee muhiimka ah laakiin codbixiyaal badan ayaa hadda su'aal qaba dawladdu waxay bartilmaamaysataa dadka jilicsan waxaana lagu sugaa shaqada horteeda ma u malaynayo dadku inay ka fikireen dadku maysan aaminsaneen xuquuqdooda in lagu tuman karo kuwani waa saaxiibadeen waa deriskeenna waana dad aan qiimayno waa igu ceeb in aanan ka fakarin saamaynta ay ku yeelan kartay dadka aan aqaan waxaa jira dad badan oo xisbiga jamhuuriga ahi taageero oo ku faraxsan xayiraadda dadka soo galootiga ah balse waxaa kaloo jiro jamhuuriyiin kale oo ka walaacsan inay go'aanadani habboonayn wax wanaagsan ayaan u malaynayay haddaad sharciga jebisid laakiin aniga dhab ahaantii sanadkan waxaan ogaanay dad badan oo bulshada ka tirsanaa sanado badan in la xiray waxaan ka hadlayaa dad halkan joogay 10, 12 ama in ka badan dadku way qiiraysan yihiin sababtoo ah waxay arkeen dad ay sanado badan isyaqiineen oo la xiray waa wax laga xumaado sababtoo ah laanta socdaalku weli noomay sheegin magacyada dadka xidhxidhan marmarka qaarkood waxaana soo mara kiisas dad la waayey
oo aanu garan weyno waxa qofkaa helay ma ice baa xidhay mise wax kalaa qofka ku dhacay annagu waxba kama qabno in dembiilayaasha la masaafuriyo lama yaabin in la xidho sababtoo ah markii maamulkan cusub bilaabmay waxaan islahaa qof walba waa la xidhi doonaa laakiin markan waan ogaa inay doonayaan inay diiradda saaraan dembiilayaasha ma ihi dembiile anigu faahfaahin dheeraada oo ku saabsan warbixintan iyo kuwo kaleba waxaad ka heli kartaan oo aad ka helaysaan boggeenna bbcsomali.com bal markana aynu eegno qodobo kale oo ku jira wararka maanta dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in ay sii daysay siyaasiga mucaaradka ah Meera Gudina kadib in ka badan sanad u xirnaa sideentiisa ayaa ka dambeysay 2 sanadood oo dibadbaxyo dowladda ay socdeen loogana horjeeday tani ayaa qayb ka ah dadaal xaaladda lagu qaboojinayo isniintii waxay mas'uuliyiintu sheegeen in ay cafinayaan 500 oo siyaasiyiin ah iyo dhaqdhaqaaqayaal baarlamaanka Catalan ayaa u doortay afayeen gooni u goosad oo garabka bidix ah kulankoodii ugu horeeyay ilaa iyo markii Madrid ay kala dirtay markaasi oo ay isku dayayeen in ay Spain ka go'aan ra'iisul wasaaraha Spain Mariano Rajoy ayaa ka digay in dawladdiisa ay xukunka soo celinayso haddii hogaamiyihii hore uu isku dayo in uu tartamo kaasi oo hadda ku sugan Brussels hay'adda qaramada midoobay ee gargaarta qaxootiga Falastiiniyiinta ayaa ku tilmaantay go'aanka Mareykanka uu ku joojiyay dhaqaalaha mid degdeg ah oo aan fiicnayn oo waxyeelo leh hay'adda ayaa sheegtay in tallaabadaasi ay khatar gelinayso tacliinta nus milyan carruur ah iyo sharafta iyo badqabka malaayiin qaxootiga Falastiin ah ruushka ayaa wada hadallo degdeg ah ugu baaqay in ay yeeshaan dawladda Afghanistan iyo Taliban si loo dhameeyo dagaalka sokeeye ee dalka hadal ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ruushka ayay Moscow ku sheegtay in ay diyaar u tahay in ay martigeliso wada hadal toos ah oo labada dhinac dhaxmara hadalkaasi ayaa soo baxay ka hor boqoshada wasiirka arrimaha dibadda ruushka Sergey Lavrov uu ku tagayo magaalada New York kulanka golaha ammaanka iyo Afghanistan dimuqraadiyiinta Mareykanka ayaa ku eedeeyay aqalka cad in ay hor istaagayaan madaxii hore ee istiraatiijiyadda Steve Bannon waxa uu sheegay guddiga baarayay eedaha lagu sheegay in ay Moscow faragelisay doorashada inuu diyaar u yahay inuu caddayn bixiyo balse waxa ay maamulka Trump sheegeen in uusan bixin diidmadiisa ayaa timid iyadoo oo guddiga ay soo saareen warqadii uu ku caddayn lahaa Rayaan Cali waa 18 jir qoyskeedana waxay dhawaan ka soo laabteen xero qaxooti oo ku taala Kenya waxa ay ka shaqaysaa hawl inta badan ragga lagu yaqaan oo ah kalluumaysiga Rayaan ayaa aroorta hore badda gasha iyadoo ay la socdaan kalluumaysato kale oo rag ah si ay ugu shaqayso 8 ruux oo qoyskeeda ah wariyaasheena magaalada Muqdisho ayaa la kulmay Rayaan waatan iyadoo oo ka sheekaynaysa hawsha ay qabato magacaygu waa Rayaan Abuukar Cali kulan dhalatay dalka Kenya gaar ahaan qaxootiga waxaan ku barbaaray dalka Kenya qaxootiga waxaan imid sanadkii markuu ahaa 2015 bishii 9aad Soomaaliya waxaan kala kulmay caqabado badan inkastoo aan doonay shaqooyin badan dana ay ii suurtagali weysay 6 carruur ayaa iga yar waxaan la daalaa dhaca korintooda maadaama aynu hooyo shaqaynin anigu aan ka shaqeeyo badan aad arkaysaa waxaan ku shaqeeyaa markaan hurdada ka soo kaco waxaan imaadaa inta habeenimo oo 9 saac badan imaadaa dabadeed waxaan raacaa doon aan soo raadiyaa kalluun malaayga mar waxaan ku doonaa maqaalin mar waxaan ku doontaa shabaqad aan habeenkii dhigto aan soo baxsadaa maalinta shabaqad hela shabaqadaan ku doontaa maalinta maqaalin ku doontaa intaba haddaan waayna oo kiyaalan xirtaa waan kuusaa muddo dhow ayaan ku soo biiray inaan badda ka shaqeeyo xitaa bajaaj waa wadi jiray laakiin hadda waan iska dhaafay Soomaali weyn iga reebtay qabanaysaa laakiin waxaan isku dhiirigelin inaan qof shaqaysan karaa maadaama aan shaqooyin waayay haddana badan ayna lahayn control ama irid laga soo galo inaan ka shaqaysan karo isku dhiirigelin badda gudaheeda markaan galo lacag fiican helaa markaan banaanka ka qabtana lacag yaraan helaa kadib waxaan ka doorbiday inaan badda gudaha u galo inkastoo marka aan galo qabow aan xamili waayo alisiinimo la galay qabowna uu jiro sanka dhiig ka soo daadan marka qaar wallahi dabcan waxaan isdahay waad baran kartaa
muddo kadibna waan bartay maasha Allah aniga hadda ku shaqaysanayo caqabado badan aan kala kulmay inay ragga ay foodeeyaan inay Soomaali weyn ay cayso in waxyaabahan dhageysan karin la igu dhaho saasay tahay dhaga jal qomasi intay amaanaysa ka badan intay xumeynaysaana yar inaan horumar gaaraan waxaan rabaa inaan qof meel iska soo saarto maanta magaca Soomaaliya ku leenaa noqdo waxaan rabaa inaan gato doomaha la dhaafo fayaal insha Allah doomo badan ay shaqeeyaan ama aan shaqooyin helo qof wax baratay oo maanta meel iska soo saarta aan noqdo markana wararka ciyaaraha ugu waaweyn Manchester United ayaa ku dhow in ay heshiis la gasho maamula Jose Mourinho heshiiskaasi ayaa ah in waqtigiisa la kordhiyo maamulahaasi Boortaqiiska u dhashay ayuu waqtigiisa ku eg yahay sanadka 2019 waxaana la filayaa heshiiskan cusub in uu naadiga kula sii joogi doono ilaa iyo 2021 ciyaartoygii hore ee reer Brazil Ronaldinho ayaa ka fariistay kubadda cagta inkastoo uusan ciyaarin ilaa iyo 2015 37 jirkan ayaa ka mid ahaa kooxdii waddanka ee 2002 ciyaarihii adduunka 2006 ayuu Champions League-na ku guuleystay isaga oo ciyaartoygii ugu fiicnaan noqday 2005 wuxuu ciyaaraha ka soo bilaabay waddankiisa Brazil ka hor inta uusan ku soo biirin naadiga Faransiiska ee PSG malaayiin rootiga dhaadheer ah ayaa maalin kasta lagu iibiyaa waddanka Senegal taasi oo ah wixii ay ka dhaxleen gumaysigii Faransiiska ilaa iyo 1980 waxa ay madaxda ku talinayeen in burka gudaha dalka laga sameeyo rootiga ujeedkana wuxuu ahaa in la dhimo ku tiirsanaashaha qamadiga dibadda laga keeno korna loo qaado dhaqaalaha gudaha lana abuuro shaqooyin hadda hawluhu si fiican ayay ku socdaan kadib barnaamij cusub oo ay maalgelinayso banka adduunka Suhayba Maxamed Badqas ayaa ka waramaysa kani waxa uu eg yahay rootiga dhaadheer ee Faransiiska balse dhab ahaantii waa kan Senegal boqolkiiba 15 burka laga hagaajiyay rootigan waa masago iyo galey waana wax soo saarka gudaha qaar ka tirsan macaamiisha dukaankan yar ee rootiga lagu iibiyo ee ku yaal xaafad caanka ah Dakar waa kuwa joogta ah kahor intii aanan ogaan roodhigan waxaan isticmaali jiray midka cad laakiin hadda waxaan ka helaa midka laga sameeyo miraha deegaanka sida sarreenka waa wax culus oo aad u wanaagsan maanta waxaan u imid inaan iibsado rootigan balse mar walba waxaan qaataa rootigan iyo kan laga sameeyo burka deegaanka waayo waa rooti wanaagsan waxaan doonayaa rootiga laga sameeyo burka dalka maxaa yeelay waa Senegalese wuxuuna kaalmaynayaa beeraleydeena ilaa iyo 300 oo foorno oo dalka oo dhan ku yaala ayaa tijaabinaya rootigan cusub oo la yiraahdo Dole oo luqadda Wolof la macno ah quwad mid ka mid ah 10 rooti ee halkan lagu sameeyo waxa laga hagaajiyaa burka gudaha wali waa in wax badan laga qabto caadooyinka cuntada walow rootiga Dole uu qiimihiisa u hooseeyo furinlayaasha ayna macaamiisha u fududahay rugitaankiisa ama Dugaye waa gudoomiyaha ururka ay ku midaysan yihiin furinlayaasha Senegal waxa uu gacan ka geystay qabyo qoraal lagu hirgelinayo barnaamij uu maalgeliyo banka adduunka haddii aan nahay Afrikaan waa inaan fahanaa inaanan horumarin karin dalalkeena la'aanta nidaam beero falasho oo xoog badan mana horumarin karno dalalkeena haddii aanan annaga warshadaynin waxa aan soo saarno suuqa foornooyinka waa in uu isticmaalaa dalga gudaha ka soo go'ay si aan korriin u samayno tijaabooyinka rooti samaynta ee Senegal waxay durba ku fiday dalalka sida Ivory Coast Benin iyo Sierra Leone rooti Faransiiska oo dalka Afrika ka baxay ka samaysanna wuxuu si tartiib ah ugu baahayaa Afrika ugu dambeyntiina waxaan idin hayaa godkii ugu weynaa dunida ee biyaha hoostiisa ah ayaa laga helay bariga Mexico dhererkiisu waa 347 kilomitir waxaana la helay kadib bilo sahmin ah halka laga helay ayaa ah bartamaha ilbaxnimadii hore ee dalka ee Maya khubraduna waxay rajeynayaan in ay helistan wax badan dhaqankooda ay ka iftiimiso intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeena waxaan idin leenahay intaan kulmi doono nabad galyo